waxa kaliya oo lagu eedeynayo waxa waaye inay heshiiskan is-afgaradka ay saxiixeen anigu shakhsiyan ase xeraali ahaan ase mas-uuliyad ahaan aniga oo aan munaafaqadaynin aniga oo aan cidna aan huheebaysanayn waxaan aaminsanahay anigu shakhsiyan in ay mudan yihiin in lagu siiyo credit in lagu siiyo ka hadlidii ay ka hadleen badda Soomaaliyeed inay ka hadlaan oo doodaas ay keenaan aad iyo aad baan credit ugu siinaya MOU-ga ay saxiixeen oo lagu eedeynayaan ujeedadiisa maanta la qeexay waad arkayseen qaranada inay si cad u qeexeen ujeedadiisu ma ahayn inay bad Soomaali lagu bixinayo ma ahayn in bad Soomaali lagu gadanayo mana ahayn sida dadweynuhu u dhigahayaan ama shacabku ay u dhigahayaan meelaha qaar in heshiis gaara lagu galayo ujeedadiisu waxay ahayd oo keliya labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo ay khasab ahayd in ay gudbiyaan warbixintooda khusaysa continental shelf-ga ama qorshe qaaradeedka labada wadan si ay u gudbistaan in aan wadanba wadanka kale uusan hor istaag ku samaynin ujeedadu saasay ahayd haddii Kenya waa laga rabay inay geyso Soomaaliyana waa laga rabay inay geyso haddaan geyn weyno continental shelf-gana dhan sheegashadiisa meesha ka bixi lahayd Kenya haddii geyn weyso continental shelf-ga meesha ka bixi lahayd marka si ay u geystaan labada wadanba ay heshiiskan waxay u galeen in qolo walba ay raali ka tahay inay geysato warbixinteeda dagaalka la igu qaado waa iska caadi siyaasiyiintu way dagaalamaan in balaag meel lagu sameeyo kaarka laga gubo laga shaqeysto waa iska caadi nabigeena ka baxsay alayhi salaatu wasalaam ilaa la yiri maaragtay xaaskiisii wax laga sheegay oo asagii xaaskiisii mugdi la kala gelay quraan ka soo degay waa la socota marka qofka markuu public yahay waa la isku dayaa in la damage gareeyo laakiin waxa muhiim ah waxa loo sheegayo qofka wax loo sheegayo aqligiisa intuu leeyahay wax suuroobi kara ma yihiin wax run noqon kara ma yihiin wax been noqon kara ma yihiin waa su'aasha u baahan qofku wax loo sheegayo inuu isweydiiyo siyaasiyiinta waa dan leeyahay sida way isdagaalaan hadda hadii aad maamulka hadda jiro weydiiso akhuna farmaajo xasan khayre in qalbi dhagax leeyahay god ugu jiro shaafadaysan maanta oo dhan toban waxa laga sheegaa waa maqasheen toban dacayada lagu haayo iska dacayada iska caadi waaye laakiin arinta ku saabsan arin masiiri waaye dacwada Kenya ka dhaxay Soomaaliya arintu waa arin maxkamad taalo waxaana filayaa waxa kaliya oo maxkamadda hadda lagu badbaadaba is-afgaradkii dawladdaas Sheekh Shariif madaxweynaha ka ahaa Umar Ra'iisul Anna wasiirka aan saxiixnay oo golaha wasiirada la marsiiyay oo cabinetka laga ansixiyay oo baarlamaanka la geeyay oo baarlamaanka diiday marka dawlad nidaam process maro wahay haddana maxkamadda asagay u baahatay asagiyana hadda uu xujo kalaba hadda la haayaba male كيسكاس مركز حراليها هي محكمة هي لويرada nooga wakiilka ah kuwaas hadda ka bacdi in la weydiiyay ay tahay